haddii gesi sama wado sifaha way aragastaan sooyaalka ka muuqda wacan ina tahay waa la saxay ina tahay waa la saxay haddii gesi sama wado sifaha way aragastaan sooyaalka ka muuqda wacan ina tahay waa la saxay ina tahay waa la saxay siyaasiga cambuxo sumad qarankaninaha aga darajada u sulay saraakiisha heegankiyo nidaamku siduu ahaa siyaasiga cambuxo sumad qarankaninaha aga darajada u sulay saraakiisha heegankiyo nidaamku siduu ahaa aday sabi iyo haween intay ku sarakaceen kolkale ku sacabtumeeno aday ku salaamayaan aday ku salaamayaan aday sabi iyo haween intay ku sarakaceen kolkale ku sacabtumeeno aday ku salaamayaan aday ku salaamayaan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن دعوة ديال ملك استواد شوكتان كنا سودو هذا برنامج يدي أنو كويجيني وحقبت كي شقوين كقرن كصومالي لان قبل كساحل قارهانا مقالة بربرها ما أنت وحى أنو كسو قارن دونا إسلامر كان وحى أنو كويجي دونا هامها كيد كشدالك مقالة بربرها وحنا نورس لي يلان دونا هدي إبرها لك النقضة شيخ سليمان سعيد علي وماريها guud ee haamaha shidaalka magaalada Berbera waxa ku soo dhaweyn doona telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho TV si uu nooga warbixiyo waxa uu qabsoomay iyo halka ay wax u marayaan waqtigan iyo sida ay shaqadu uga socoto haamaha shidaalka ee magaalada Berbera salaam ku soo dhaweyn doona telefishinka Bulsho salaam ku soo dhawow marka hore habeen wanaagsan bismillaahir rahmaanir rahiim waan idin mahadnaqayaa Bulsho TV runtii hadaan idin ka warramo terminalka iyo intuu ka kooban yahay 3 dawladood baa dhisay qaybta horeysa waxa dhisay dawladda Ingiriiska 1952 gii waxa qaybta labaadna waxa dhisay Ruushka baa dhisay qaybta saddexaadna waxa dhisay Mareykanka dhisay u dambeeyay 82 ilaa 84 kii uu dhisay mugga haamaha ee kaydka qaranku waxay ahayd ilaa 50,000 oo mitir tan bay ahayd waxa shaqeynayay muddadii dagaaladii iyo waxaasisay u saameeyaanba iyadoo aad dayactir badan aanay muddo dheer u helin oo khaasatan intii ay kambanigii Total gacanta ku haysay iyo intii ka horeysayba muggu si koobmay intii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud uu qabsaday talada dalka waxa ka go'aanayd inuu mugga ku soo celiyo halkiisii dhiirigeliyo sidii qaranku yeelan lahaa capacity ku filan oo xagga kaydka shidaalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ku hawlanaa sidii uu terminalka ugu soo celin lahaa sidii uu hore ugu shaqeyn jiray saadaradeed waxa uu amar ku bixiyay in dayactir lagu sameeyo dhameystiran capacity lagu waasicinayo lagu ballaarinayo anagoo ka hawlgalayna ku shaqeynaa amarka madaxweynaha qaranka ayaanu kordhinay capacity-ga imika waxa dhamaaday 5 haamood
oo gabagaba ah ilaa beritoole ayaa kuwii ugu horreeyay shidaalkii lagu shubayaa. waxaa ku soo kordhay capacitigii hore oo 24,000 ahaa 7,000 oo mitir tan baa ku soo kordhay beritoole laga bilaabo oo haamaha cusub ee marka lagu shubayaa. waxaa kaloo iyagana xagga mugga dayactirka marka laga yimaado waxaanu hagaajinay iyadana sanadka noo qabsoomay security-ga oo aanu ku sameynay hadday tahay training aanu sameynay iyo capacity building loo sameeyay shaqaalaha security-ga iyo haddii ay tahayba in markaa wixii security-ga dhib ku ahaayee hareerto dhirgaran waaye xidhay iyo waxa aanu shaqadii ka bilownay nadiifinaanka la garaynay. waxyaabaha noo qabsoomay waxaa ka mid ahaa ballaarinta terminaalka dhulkiisa oo markii hore koobnaa imikana 500 oo mitir oo xaggaasi gidaarka aad arkaysaan ku soo maray dhulkii horena aanu duminay dhulkii oo la ballaariyay. waxaa kaloo iyadana aanu waxqabadkii ka mida wadadan oo aan jiri jirin oo wadda casri ah gabagaba hadda ku sii dhow insha Allah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhagax dhigay imikana gabagaba ku noqonaysa. waxaa systemka loo dhaamiyo booyadaha oo 4 booyadood oo qori maadaama mar walba consumptionka qaranku kordhaya inay kordhaan haddana booyadaha galaya iyo dhaamintu si aan cidhiidh u noqonin 4 booyadood bay ahaayeen imika 6 booyadood bay marayaan oo sii kordhinay. waxaa kaloo iyadana ka mid ah inaanu soo dhadhisnay baabuur casri oo cusub oo 2014 inaanu keenay iyadoo terminalka aan wax gaadiido fiican aanu lahayn gaadiidkiisu duug ahaa dhammaan kuwii laga tagay gaariga ugu yar in adigu 98 iyo wixii ka dambeeyay la keenay. waxyaabaadka kale noo qabsoomay waxaa ka mid ah inaanu sameeyay inaanu hijiinadii u hagaajino hijiino cusub aanu keenay kuwa baxay ay ka mid yihiin badhawada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenku noo yimi oo marka iyagana qalabka la keenay. runtii wax badan baa muddo yaroo 5 bilood ilaa 6 bilood anagu shaqada joogay ayay intaasi noo qabsoontay. waxaan rajaynayaa marka insha Allah dhawaan 3 haamood baa ayaa haamihii ka sii xun 3diina imikaanu bixinayna kale anagoo bid ku bixin doona insha Allah. haddaanu bixinaynaa kontaraagoodii waxay ku jiraan ilaa May in dhammaan terminaalku noqdo mid wada shaqaynaya oo aan laga warwari doonin mug dambe. waxaa kaloo iyadana xusid mudan inaanu soo wadno laab casri ah oo aanu rajaynay inaanu isna sanadka gabagaboobo oo quality-ga shidaalka inoo imanaya lagu hubinayo. waliba intaasoo quraan maahay waxaanu ku hubin doonaa shidaalka xitaa kaalmuhu ay iibinayaan oo kaalmaha qaar baa jira inay ka keenaan shidaalka ama xeebaha kala degaan ama Puntland oo kale mid xabag laha ka keenaan meelaha ka keenaan. marka waxay noqon doontaa si tiimanba ka bixi doona bishiiba magaala loo ballami doona kaalmaha ku yaala certificate baa la siin doonaa dadku markay ka iibsanayaan waxay eegi doonaan laabka iyo BOT Berbera Oil Terminal shidaalkii ka soo degay ay baadhay ayaa boardka laga akhrisan doona deedna qofku soo kalsooni qaba oo shidaalka ka qaadan doona kaalinta. waa wax qabadka insha Allah noo qorsheysan inuu qofku shidaalka aanu ka shaqeeyo wallahi kaalin xun baa shidaal xun bay ka shubtay waxa saan is oran doonin laakiin uu oran doono certificate-ki ma haysataa in la shidaalkaaga la laabgareeyaha deedna ay ma haysan qalabkii laabkii lagu baarayay shidaalku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha hadda ugu isticmaalka badan si aynu u ogaano quality-giisa waqti hore waxay nagu maqaalo ahayd in lagu soo baari jiray ama Djibouti ama wadamo kale oo laabkii aynan hayn. laabkii maanta ma yaalayo ma ku baadhaano mayno diyaar maynooyi laabkii qorshihiisa waa noo dhameystiray. company baa had iyo jeer terminaalada iyo laababku waa kala jaad oo waa kala maamul. marka kambaniyada caalamiga ah baa laababka gacanta ku haya si aan terminaalku gacanta ugu hayn oo terminaalku isaga shidaalku ku soo degaya. marka qofkii shidaalka iibinayay ee soo dejinay wuxuu oranayaa maadaa meeshii xukuma maadaana ay xukumayeen shaygii quality-ga. marka had iyo jeer waxa kala caalamka waxa kala jaada
laababka iyo maamulka terminaalada marka laabku waa kambani caalamiya gacanta ku hayn doona oo kambaniga waliba Bambaasa laabkooda gacanta ku haya waanaanu ka heshiinay dhawaana uu bilaabmay insha Allah markuu yimaado isagoo shidaalkii sidoo dekada ku soo xidho dekadii iyo qaybtii haamaha shidaalka inta in laga baa laga wareejin karaa kuyubay galaan shirkadaha soo dejiya shidaalku mise qof walba waa ku wareejin karaa shidaalkiisa haamaha wax ku yimi jiraan oo runtii ma galaan mararka qaar baa jirta laakiin de maraakiibta isku soo gaari karayso oo waxa jirta waxa sababi karaya in maraakiibtu isku soo gaadho xilliyada shidaalku jabo oo kale waxa laga yaabaa inuu marka imko kale shidaalku uu jabay inuu aad u waxun kaalmaha oo kale runtii yani dareen badan suuq yani ku sameeynin jabiddu jabayo waayo islaanta baska raacaysa waa in basku ka jabo shidaalku noloshoo dhan buu xiriir la leeyahay markuu jabo waa inuu lightingkii gurigu jabo waa inuu basku jabo ka soo qaadimayna dadka qofka aniga kala gaadhay wata marka inaga bulshadeenu waxaad moodaa inay xagga dalciidana u dhaganugushay xagga dejintana ay aad uga dhagaadagtay aad waan wax maruntii waayo shidaalku 50% buu jabay marka waxa laga yaabaa kaalintii $10 siinaysa inay wali 2,000 ku soo celinayso marka halka uu ama $6 ama $7 oo ka ahaan lahaa marka kaalmo waan soo jeedinay runtii inay naxariisan maali waxa jirtay qaam shirkad kamid ah shirkadahan soo dejiya batroolka oo shirkadda haas markaba ay leedahay kale ku soo xidhay dekada in lagu yiri markab kale oo shidaal dad kale oo dan gaar ah laga lahaa marka ayaa la idinka horreysay arintaasina ay ka cadhaysiisay qoladii ganacsatada shidaalka haas arintaasi maaraya maxaad kala socota arintaas horta ma jirto exactly waxa sax waxa soo horeeyay markabka haas waa noo yimi halka mutaagna kambani kala markab yimi keenay oo markaa cusub waxaan u sheegnay inay haas ka horeyso markabkii haas uu joogay haddii idinkii haas isla waafaqdaan annagu de shirkaduhu tacaamul bay leeyihiin annagu idin dhex kelimayno maamulku annagu ka soo horeeyay ba xaq leh inaanu ka shubno kambaniga haas way la tacaamuleen warqad bay u soo qoreen aniga ay u soo socodsiiyeen ay ugu yiraahdeen markabka ka horeysay maamulka haas bay warqadii waxaan ku wari sababahan markabkiina ugu horeysiinaysan sababtii markabkooda ugu horeysay waxa weeye kambaniga haas la yiraahdo u baahnad iyada lafteeda shidaalka inay hesho oo kambanigan ay shubayso shidaal ka qaadato hadhow ay tacaamulaan oo iyaguna ka salay koodaasi markuu dagay shidaal kala qaataan laakiin anagu waxaan ku shubnay amarkii haas ee igu naga horeysay waxaan hayna qoraalkay noo soo qoreen salaam waxaad maarayad ka daberbera sorry aan maarayaha shidaalka magaalada berbera ama waxay hoos tigi jireen waqtiga hore wasaaradda ganacsiga iyo xagga xisaab ahaan maaliyadda oo kale sii mari jireen waqtiga waxa la leeyahay waxa la hooskii xagga madaxtooyada maarayay arintaasi noo iftiin wax ka jira ma jira wasaaradda ganacsiga hoos tagta leen minister waxa ku tusay warqadda waxay soo qoray wasiirka ganacsiga ogolaanshaha shidaalka degay wasiirka ganacsiga laga soo qaataa madaxweynaha laga soo qaadan lahaa hoos tageyso marka waa sheeko gaaban oo suuqa maaliyaddeena qaranka budgetkiisa iyo miisaaniyadiisana wasaaradda maaliyadda diyaarisa hadaan anagu ka baxnay maaliyaddana de waxa ku cad yahay buugga wasaaradda maaliyadda marka wasaaradda maaliyaddu goob kasta oo dhaqaalaha line minister waxay u tahay dakhliga iyada lagu xareynaya wasaaradda ganacsiga line minister bay u tahay maareeyaha waxa soo magacaabo wasiirka ganacsiga nidaam waxa la idinku soo wareejiyay lacag gaaraysa $1,300,000 lacagtaasi maxaad isleedahay waa lagu qabtay maareeya wallahi taayo to ka badan terminalka way ka soo baxdo way u taala mashaariicduna way socotaa lacagta iyo to ka badanna waanu haynaayo ay terminalku leeyahay
waxaan ku weydiin lahaa maray shidaalkan tayada shidaalka marka ama jabinta qiimaha oo kale haddana idhaahdo yaa awood u leh inay jabiyaan qiimaha shidaalka marka la keeno Somaliland shidaalka uu Somaliland soo galo imika waxaa tiri caalamka waa ka jabay laakiin kaalmihiina ma jabinin shirkadaha soo dejiyay oo shidaalka ma jabiyeen shirkadu wixii awoodooda way dhimeen way jabiyeen oo runtii wayna soo gaarsiineen jabiyeen laakiin kaalmaha qaar baa wali $10 ay 10 litir siin jireen dadkeena Salabaan waxaad ka mid tahay culimada waaweyn kulay berbera aan su'aal kaftan oo shakhsiya ku weydiiyo culimada waaweyn baad ka mid ahayd in kana laftigeeda dawad ka mid taho waxaad gacanta ku haysaa masaajidda magaalada berbera waxaan ka shaqeysaa maareeyaha waxaad tahay haamaha shidaalka ee kaydka magaalada berbera miyaan la oran karin xaggii cibaadada iyo wixii uu sheekhu uu ka yar fogaanaya malaha wuxuu galay xaggii diinteenu waxa way qofku inuu shaqeysto marka hore cibaadada diintiisu ma diin waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hogaamiyo waa madaxweyne ummadda waxa quruunda waxa ka soo talinayay mesela markaad eegto Umar ibn Khattab iyo Abu Bakr Siddiq iyo saas oo kale marka cibaadaduna waa shay qofka madluubka meel kasto joogo ama madaxaada ama uu ahaana way ka sarreeyay iyadu marka timar rajeenaya in lagu shaqada in lagu kufriyo waxaan inaanu xaq Ilaahayna garanayna xaq dadkana ugu shaqeynaa insha Allah kulay salaam barnaamijyada waxaan ugu talagalay maareeyo inaanu ku ogaano xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta magaalada berbera iyo sida ay uga socoto shaqada qaranka Soomaaliland iyo waxa uu qabsoomay telefishanku toddobaadada oo waxaan soo wadnay barnaamijyada ugu kurgalayno wax qabadka hay'ad kasta meel kasto shaqada dawladdu ka socoto waxa tay maareeyihii haamaha shidaalka maxaad soo jeedin lahayd tala qaran oo maanta aynu u baahanahay haday tahay shirkadaha shidaalka ama kuwa kaalmaheed in doonaysa inay jabiyaan maxaad fariin maanta soo jeedin lahayd halkan maareeyo سنة وكل فريق وحنا شاهدين أدبر تقوم هندقيا شركتها واوين الجناح ستدا وهذه قرن كلها كفية رقم وناكسني تعامل وناكسني رحمة بدن بارنتي نقدر حيسة الشقة قرن كوهيان كان جناح سنة أن أدبر ومهندقيا كلمة أساس وكلا أدبر يجنا ومهندقيا وحرتين يوم إن أنا تاجرنا iyaguna istaageersadaan bulshadu markay dabac xagga qiimaha yimaado inay tareento ayaan runtii kula talinayaa oo maalintu kacayo waa la isweydiinaya hadii hal kun kordho maalinta kunkii dhaco bulshadu inay tareento maana aad iyo aad ayaan ugu talinayaa oo shacabkeenu waa shacab aan culays badan qaadi karin weeye aad iyo aad baan idinku mahadnaqay security ama amaankii oo kale marka laga hadlayo damdimiskii oo kale safety kule meesha waa sensitive waxa loo baahan yahay arrin damdimisku ay ahaadaan intaas damdimiska ka howlgala haamaha shidaalku waa imse tiradoodu waxa jira fire system waxa la yiraahdo bay ku shaqeeyaan oo baabuurta ka duwan marka fire-ka ay ku shaqeeyaan haam terminalku waa fire casri ah oo waliba aad u sareeya meel kasto dab ka dhici karna uu ku jiraaba meel kasto dab ka dhici karo fire-ka bay leedahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay haamaha maareeyaha haamaha kaydka magaalada berbera Saleebaan Siciid Cali oo inoogu waramayay xafiiskiisa magaalada berbera daawadayaal barnaamijyadan waxa ku eegnay isla markaana waxaan ugu kurgalaynay siyaabaha shaqada qaranku uga socoto haamaha kaydka shidaalka injineer Maxamed Ibraahim Xoorre waxaan halkan haamaha ka shaqeynay muddo ilaa 25 sanadood berbera Kismaayo iyo Xamar inta baan ka injineer ahaa marka halkani baan inta badan deganaa in hadaad u fiirsatid anoo si kooban idinku sheegaya xeradani waxay ka kooban tahay 3 qaybood qayb Ingiriis ku dhisay qayb Ruus ku dhisay iyo qayb Mareykan ku dhisay mid waxay ka kooban tahay 5 haamood wata 5 haamood waa kuwa Soomaalikan qaybna waxay ka kooban tahay 14 haamood waa kuwan inagu beegan imika Mareykankuna
وكوا كشيء حق الشيء كوسميسن أيين صدق حمود ويان روس كوحل وأفريتون حامض يلا حامض إيربورت غير السي أنت صنو مسكود حيرسين سمعت كلام مركا شدالك إمي هو دبوحن جدي سودي حامض marka bay imika loo taagan meel ku shubno weyne asna imika meel baan u banaynaa lagu shubo marka xirada inagu horta waa halbowlaha dalka ina aad loo eegana waa fiican tahay marka intii uu maareeyahan cusub yimid Sheekh Saleebaan ya waxyaalo badan ba iska bedelay waxa kamid ah halkan imika u taaganahay baleeg waa sibid way go'oonad markore sibid cusub ku dasamay wadada waa aragteen وصوم إلا مجيم كلا لقيه صومت كلا جدار كعادي هالك وريسن خانت الملاب كده هذا الملاب كده كردي صومت كلا إن مشينا عصبنا وكان استولر دي بالسماء مركا وحياله وين وعشايبه يا أنتوا تشوفوا وقبته ونهار الله وقبا مركانو آدي آد بنو أمانية صومت كران خارج كستحق الله لكن سوحوا موشي إيش عم علينا صومت كران يا مركا waxaan rajaynaynaa inuu intaan ka sii badanna uu wado ayaan rajaynaynaa marka xiradani waa xirada halbowlaha hadii qoraale ilaa waxay qaadaan 50 milyan oo litir marka la isku geeyo marka aad iyo aad ayaan ku soo dhaweynaynaa intaasina aniga day warbixintan gaaban aan ka bixiyo wixii la qabtay iyo wixii soobeysay xaaladu wixii details kana hadhowba heli doonta magarasa maarayaha idin sheegay marka halkan waa halka booyadaha laga dhaamiyo waa kan duubtaayna soo moodin waa halka booyadaha laga dhaamiyo ya haddii gesi sama wado sifaha way aragastaan sooyaalka ka muuqda wacan ina tahay waa la saxay ina tahay waa la saxay haddii gesi sama wado sifaha way aragastaan sooyaalka ka muuqda wacan ina tahay waa la saxay ina tahay waa la saxay siyaasiga aan baxo sumad qarankan lahaa ana darajada u sugay saraakiisha heegankiyo nidaamku siduu ahaa siyaasiga aan baxo sumad qarankan lahaa ana darajada u sugay saraakiisha heegankiyo